بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walbay joogaan. waxa inooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha. waxa gabayga maanta la yiraahdaa dadka laga taajiraa, wuxuuna ka hadlayaa in taajiriintu dadka ka taajiraan haddayna jirin dad wax ka iibsanaya ma lacagtay cuni lahaayeen. wuxuuna ku bilaabmayaa insha Allah sidan: dadka laga taajiraa ha noqoto tacliinta tafiirtaadabe. taajirku ma uu heleen taano dadka la'aantoode. saasay tahay taajiriintu ummadda uma turaane, uma taraan waxna dan yarta dareenkooda taagta darane. waxay ku tala jiraan ganacsi tarma inay helaane. dadka laga taajiraa ha noqoto tacliinta tafiirtaadabe. taajirku ma uu heleen taano dadka la'aantoode. wax la taaban karoy dadka taraan lama arkee. tusaalay noqon lahaayeen haddii ay inta baahan taakulayn lahaayeene. maalkaagay u durbaan tuntaan kuna taajiraane. hooyada tamaandho milicda la taagan ayay u tafaxayteen kana tuuraan suuqe. dadka laga taajiraa ha noqoto tacliinta tafiirtaadabe. taajirku ma uu heleen taano dadka la'aantoode. waad mahadsantiin dhammaantiin. waxaan leeyahay taajiriinta dadka allaha uga baqaan oo cunto iyo dawo tayo leh keena dalka una tula dadkiina. ilaahay ha idiin naxariiste, idinkuna maatida u naxariista insha Allah walaalayaal. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.